dowladda Mareykanka ayaa qaaday dhowr tallaabo oo hoos loogu dhigayo awoodda Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya oo waqtigiisii uu kol hore dhamaaday si hayaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho oo ka duulaya inaysan jirin dowlad hadda la isku raacsan yahay oo Soomaaliya ay leedahay ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa halkaas ku soo dhaweeyay oo kulan gaar ah uu la yeeshay Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedkaas waxaana si hayaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya uu si toos ah heshiisyo gaar ah ula galay dowlad goboleedka Puntland maadaama aysan hadda jirin dowlad federaal oo sharciyad haysata Mareykanka ayaa u muuqda in uu tan culays ku saarayo Xasan Sheekh Maxamuud Culusow oo noqday hogaamiye sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya isla markaana ilaa iyo hadda aan heshiis la gelin siyaasiyiinta iyo sidoo kale dhinacyada ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka iyo muddada dhamaatay shacabka Soomaaliyeed ayuu la soo hor istaagay in hal sano oo sharci darraha uu ku darsanayo si joogidiisa Villa Soomaaliya iyo hogaamintiisa dalka balse tani waxa ay niyad jab ku abuurtay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed si gaar ah dadka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo mar kale ka cabsi qaba in hal sano oo cagaf iyo burburin ah ay si toos ah u wajahaan si hayaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya marka uu tagay magaalada Garowe waxa loo galbiyay madaxtooyada xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ayaa ku soo dhaweeyay aqalka waxaana loo galbiyay xafiiska iyo sidoo kale halka uu ku qaabilo dadka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni halkaas waxay ku yeesheen kulan saacado qaatay waxaana ugu dambeyn la isla qaatay dhowr qodob oo muhiim ah oo si weyn u saameynaya xaaladda dowlad goboleedka Puntland taasoo muujinaysa in Mareykanku markan uu ka tagay Muqdisho dowlad goboleedyadana la heshiinayo waxa Mareykanka iyo sidoo kale Puntland ay ku heshiiyeen in shirkadaha inta badan macdanta iyo shidaalka ee Mareykanku ay tagi doonaan deegaanada Puntland heshiis dhankaasna uu dhinacyada dhex mari doono waxa sidoo kale uu Mareykanku ku dhawaaqay in uu qunsuliyad ka samaysanayo magaalada Garowe isla markaana ay ka dhigayso in safaaradda Muqdisho iyo sidoo kale qunsuliyadda Garowe ay wada shaqayn doonaan waxa sidoo kale la isla afgartay sida heshiiska lagu sheegay in talis cusub laga dhiso garoonka magaalada Boosaaso halkaas oo Mareykanku ciidamo uu ku tababari doono waxa sidoo kale kamid ah dhinacyada kale ee sida rasmiga ah looga wada hadlay in Mareykanka iyo sidoo kale Puntland ay si gaar ah u wada shaqeeyaan xiriir gooniyana yeelanayaan inta laga helayo dowlad Soomaaliyeed oo la isku raacsan yahay laga heshiinayo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa madaxweyne sharciyad haystana uu si toos ah Villa Soomaaliya u fariisanayo arrintan waxay ka dhigan tahay in Mareykanku markan uu dhinac ka istaagay Xasan Sheekh Maxamuud Culusow waa tallaabadii iyo dharbaaxadii siyaasadeed ee ugu horeysay ee ku dhacday tan iyo markii muddo kororsiga sharci darrada uu ku dhawaaqay waxa Mareykanku ay muujinayaan inaysan wax sharciyada u aqoonsanayn Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha sharci darrada Villa Soomaaliya ku fadhiya Xasan Culusow midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn markii ay ugu yeereen mudane Xasan Sheekh iyaga oo aan madaxweyne ugu yeerin sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegay in si dhab ah ay ula socdaan xaaladda halista ah ee siyaasadda Soomaaliya sida rasmiga ah ay u wajahayso waxayna dalbadeen in dhinacyadu ay heshiiyaan arrimahan marka lagu daro culaysyada mucaaradku ay saarayaan Villa Soomaaliya waxay ka dhigan tahay Xasan Sheekh in uusan cagaha dhulka ku sii hayn karin haddii uu isku dayana waxa uu la kulmi doonaa xayiraado iyo cunaqabateyno ka imaanaya qaramada midoobay oo Mareykanku uu hogaaminayo taasoo muujinaysa in dharbaaxooyin kale oo adag ay ku sii socdaan in dowladuhu ay si gaar ah maamulada ula hadlaan waxa keenaysa sharci darrada oo Villa Soomaaliya ku fadhiya Xasan Sheekh aqoonsigii Israa'iil ee Somaliland kadibna waxa soo socda ficillo kale oo halis ku ah qarinimada iyo jiritaanka oo Xasan Sheekh Maxamuud oo inta badan kaga mashquulay arrimaha dhulboobka